iyo tacsi aan la wadaagayno ummadda Soomaaliyeed oo dhan maxay yeelay dad badan oo Soomaaliyeed ayaa rabshadahan Koonfur Afrika maalmahan ka socday qaarna lagu dilay qaarna hantidooda lagu dhacay dadkaas marka waxay mudan yihiin in intii dhimatayna loo duceeyo inta noolna loo duceeyo Ilaahay inuu samata bixiyo ayaga iyo maalkooda inta dhimatayna naxariista Ilaahay inuu siiyo waxaan si gaar ah marka kulankan loogu qabtay walaalkeen Mahad Ciise oo qoyskiisa aan la wadaagayno tacsida oo ugu horeeyo wariye Maxamed Ciise oo asxaabtiisa maanta halkan ay isugu imaadeen ayaga oo qalbi qaboojin iyo tacsiin u jeedinaya horta geeridu waa xaq qofka insaanka markuu dhashana way ku kor qoran tahay inuu dhiman doono al insaanu yuladu liyamuta insaanka waxa loo dhalaaba inuu dhinto qof aan la dhalin ma dhinto laakiin qof kasta oo la dhalo ugu dambaysta dhimasho ayaa u dambaysa dhimashadaasna maadaama dad muuminiin aan nahay qadaa'ullaahi wa qadari arkaan iimaanka ay inoogu jirtaa marka waxyaabahan kaga duwanahay dadka aan iimaanka lahayn waxay tahay ayaga markay dhimasho la soo gudboonaato dad ay jecel yihiin ay ka tagaan maadaama aakhira ayna rumaysnayn iyo waxa dambe ayaga waxoodan adduunyo kali ay tahay aad iyo aad ay u walwalaan laakiin inaga markay inagu dhacdo arinta dabcan waan ka naxaynaa oo waxa leeyahay as-sabru 'inda sadmati al-ula waxa laga cabiray jug ayaa laga cabiray nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa wuxuu arkay islaan qabri agtiisa ku ooynaysa markaas wuxuu ku yiri ittaqillaha wasbiri ilaahay ka cabso iska sabir qofkan uu dhintay markaas waxay ku tiri ilayka anni fa innaka lam tusabbi musibati iga dheero tiri wixii igu dhacay kuguma dhicin waa gartaay markaas nabigu isaga tagay waa loo sheegay waxa la ma garanaysa miya qofka Allah hadlaysi innahu rasuulullah rasuulka ilaahay waa qofka Allah hadlaysi markaas ay ka xumaatay say wada shay gurigiisa ayay ugu tagtay guriga nabigana albaabka la iskama celin jirin oo uu furaa oo dadku way u imaan jireen markasta bawaab moona lahayn markaas ay ku tir rasuulka ilaahay kuma ana garanaynin inaad rasuulka ilaahay tahay iga raali ahaw markaas wuxuu ku yiri inama sabru 'inda sadmati al-ula sabirku waa jugta ugu horeysa markay kugu dhacdo mar dambe oo aad soo oohin bogatay oo dhamaysatay haddaan sabraya sabarkaasi ajir badan male marka dhibaatadan hadda ummadeena Soomaaliyeed ku wada dhacday oo dhan inay inoo noqoto jugta ugu horeysa inaan ku sabirno maxaa yeelay wama kaana li nafsin an tamuuta illa bi idnillah naf dhimanaysa ma jirto ilaahay inuu idmo bay ku dhimataa marka ilaahay mar hadduu idmo xilliga uu idmaayana wax hadda bilowday ma ahane qofka markuu caloosha hooyadii ku jiro ayaa waxa la soo qoraa bikatbi rizqihi wa ajalihi ajashiisa qoran marka ajasha marka inagu ma qaybino inaga iskama lihin haddaan badsan lahayn iyo haddaan yareysan lahaynba gacan waxa inoogu jira male intuu ilaahay qof walba ka siiyay ayaan ku qanacsannahay markay imaatana sida aayada meesha inoo qoran oo tacsi kasta aan ku dhahno inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un oo macnaheedu uu yahay marka horeba ilaahay baa nalaha oo na keensaday xaqiisana u noqonaynaa yani qof ilaahay garab maraya ama dhinac maraya manihin sidii muuminiintii fircoon uu yiri waa in dilaya ay ku yiraahdeen la dayra inna ila rabbina munqalibun marka dadka qurbaha ku dhimanaya oo sidaas ah runtii waa xanuun ay leedahay dhimashada iyadoo markasta xanuun ay tahay wadankeena dhimashada ayna ku cusbayno aan maalin walba u joogno dhimasho iyo waxyaabaha la midka oo arkayno haddana markay meel qurba ah oo banaan ay ka sii dhacdo si gaar ah ay inoo taabataa oo Soomaalida banaanka ku dhimanaysa aad ayaan uga walwalnaa maxaa yeelay waxaan dareemaynaa qofku hadduu ehelkiisa la joogo hadduu dadkiisa la joogo way ku sabrayaan asagana wadankiisa ayuu joogaa wixii kula dhacana uu ku ogol yahay laakiin qof qariib ah oo aan ehelkiisa la joogin oo dadkiisa aan la joogin oo dad kale la jooga markay duruufta dhimashadu ku hareeraysanto oo uu soo xusuusto dadkiisii iyo ehelkiisii iyo wadankiisii oo ay aad iyo aad uga fog yihiin markay saa ugu dhacdo asna waa xanuun oo ay dhibaato badan tahay dadka uu ka soo maqan yahayna haday la joogi lahayn waxay dareemi lahaayeen inay ku sabrayaan laakiin mar ayna la joogin waxay la noqonaysaa haday la joogi lahaayeen inay difaaci kari lahaayeen inay dhibaatada ka bixin kari lahaayeen inay dhinac u cararsiin lahaayeen inay soo yeeli lahaayeen laakiin mar hadduu maqan yahay yani waa xanuunkeeda leedahay saas daraadeeda dhimashooyinka gaarka ah oo diintu ay si gaar u tilmaantay waa dhibaatooyinka xanuunka badan ee dhimasho waa dhimasho laakiin si gaar ah u sii daran waxa kamid ah qofkii midna biyo ku dhex dhinta oo biyo intuu ku hafto dhinta qariiq ayaa la yiraahdaa waxa kamid ah qofkii dumis darbi ku soo dumay ku dhinta waxa kamid ah qofkii midna daacun u dhinta waxa kamid ah gabadha umul raacda ee xanuunka foosha ay saas ku dhimato waxa kamid ah dadka midna gubta yani waxyaabaha soo kale waxa si gaar ah loogu tilmaamaya xanuun gaar ay leeyihiin marka qurbuhuna
واساس وكله قف ودن كيسي أن جوجن دمشق ودمنايو حنون أي هذا مركا دعاء يعني سوي معنا وندعينا وحنا كيف هذه السنة دروس إن كقاعدنا يتاي ومد الصوماليات دبعتها يا دالك جودي سيدي بدي سوق هايستا سو كما حنونسنا إنه دتك بناك كل منايا dadka gudaha ku dhimanayna sidaas la mid ah inaan uga xanuunsano ayaa la rabaa oo inaga Soomaalinimadka iyo Islaamnimada iyo caadifada dhexdeena oo markay banaanka jirto aan aad u qiiroonayno inaan halkan gudahana aan ka sameeyno inaan isu diirnaxno maxaa yeelay dadka banaanka jira waxaan ugu heelin karnaa dadka gudaha jooga oo heshiiya dadka gudaha jooga oo yaani dareema waxa dadkeena banaanka ay ugu dhamaanayaan waa wadankoodii oo ina ku soo noqon karin oo mar haday ku soo noqon lahaayeen nabadgelyo xumo ka jirta raadeed ay banaanka uga maqan yihiin hadii kale waxaan noqonaynaa si reer banu Israa'iil waxa lagu yiri kitaabkooda Tawreed ah maadaama kitaab la idin soo dejiyay inta kitaabkan isla rumaysan ee ahlu kitaabka isla ha isdilina idinku markaas waxa kale oo leeyahay hadii ay dhacdo in qof maxaabiis ahaan loo soo qabsado oo reer banu Israa'iil واجب واحد يكون على عقد كبحسان أو مفرشة كبحسان أو تسيديسان وحاجري مركب قبائل يهودا هي قبائل عربة ومدينة إسرائيل دجنا تحالفات يسقى شامبوريس أيال السمينجري مركب صلى الله عليه قارنا وحين قلنا قيب عربة هي قيب يهودا لنا عكلنا قيب عربة هي قيب يهودا وإستقالها يا مركب إستقالان قيب أيال الجبينايا قيب الجبيي وحكوا الجرا قيب عربة هي قيب أو يهودا لنا عكل وحجبين وحكوا الجرا قيب عربة هي قيب يهودا kuwan guuleystay qaybta yahuuda ee ku jirta maxbuus laga soo qabtay dhinacii jabay hadii loo keeno waxay leeyihiin kitaabkeenu wuxuu qabaa inaan madax furasho ka bixino lacag waxa rabtaan saaxiibaden sheegta idinku hal idin siiye markaas ay lacagtii bixinayaan markaas waxa lagu yiri idinka guriyahoodii hore iyo dagaalkii horena qaybaad ka ahaydeen lama ogoleen haddana waad ka bixinaysiin qaybna ma ogoshiin qaybna ma diidaysaan wayda khadna miisaaqakum la tasfikuna dimaa'akum ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى أو أسرى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض بحال مركي وربا سين أسباب قف كان لو محبوسي كرا أين أسمى اسمين با سولدين كي لدين ماها هايزدلين إزدايا واسيدا Soomaalideena hadda markaan gudaha joogno sidii ayadoo la yiri gudaha waad isku dili kartaan saa doontaan isyaala ayaan gudihii isku laynaynaa oo isku dilaynaa banaanka markay u baxdana hadii qof Soomaali ah banaanka wax lagu yeelay aan maqano kulligan waa wada qiiroyn maxaa la Soomaaliya banaanka lagu dilay halkan hadaan laga eri lahayn oo nolosha oo xagga laga raadinayo inta loogu diyaarin lahaa goormuba xagga tagi lahaaba diinteenuna wiqaayada iyo koortagu aad u muhiim ugu yahay jidka hadaad ka qodo wada dheer god hadaad ka qodo oo dadku ay ku dhacaan يعني قد كاس عاد قضيتك يكون عي دم بأيات كل هذا تاسمح أقول لك هذا وطن كان ظروفته كجرتا قف كست أو إنه دجوه عن قيب كأهين أو ضدك إنه يسيق قحان أو يسيق عران وطن كسي فوق هذان قيب وقعه سوما نقول يسجد قف إن تو قضي لقول دعانا أيه مركز ضدك بنانك كل اللي منايا أو أما قاركود أي قالوا بيان أما قحا سودان ضدك جودها جوج واجب حاجة صارنا جوجي ضدك أي كوسو الله من لهين أو نبض إن آديات لو دياريو هديك لو حين قالوا قريسا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وهل كان مكيري إنسان ومقحين إنسان هدي بنانك اللي قد لنا محل ليدين محل لود لي مرك هل كان أنا هجاجينه سيدت كاس بنانك إنه قد جرا أن لينو قد لين أو وطن كاني إنه وصل نقدان أيجو أو آديات وطن كود أجعل مرك وحام تعسي جود دين المدة الصومالية سيجارة هذا التعسير أفردنهم وأنا أدعو عيننا القرآن كانوا آخريني الله أقبله الله نحرسه ولا كان ehelkii qaraabadii uu ka tagay sabirina Allah ka siiyo ummadaas muslimka Soomaaliyeed ee banaankaas ayana saasoo kale koonfur Afrika lagu dilaayana ayagana Ilaahay farajha u furo kuwa maalkooda laga qaatay Ilaahay maal bedel khayr qaba Allah siiyo kuwa la dhaawacay Allah caafiyo kuwa dhintayna Allah u naxariisto walaalkeen sabir iimaan Allah inaga wada si dhamaanteen Allahumma maghfir li hayyina wa mayyitina wa haadirina wa ghaa'ibina wa kabirina wa saghirina wa dhakarina wa unthana اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفي على الإيمان يا رب العالمين اللهم اغفر لأخينا اللهم بدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم قه عذاب القبر وعذاب النار اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه يا رب العالمين اللهم ألهم أهله وذويه بالصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انت كسوق يبقى شيء وانا اجري حسنات الله كسيو وتعسيدي عن سكول هين واجب العزاء ينقذنيني
idinkana miisaanka xasanaadka Allah idin saaro dadkii aheelkii qaraabadii uu ka geeriyoodayna sabr iimaan Allah siiyo sidaan halkaan ugu kulan iyo quraan akhriskaasna ilaahay jannatul firdaws hayna ugu kulmiyo. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.